السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا cunto caafimaad galabta waxaan la wadaagay cashadeena diish kamida oo ka sameeyay digirta madow iyo khudaar kale. digirta madow aad ay caafimaad u leedahay siyaalo badan oo kala duwan ayaad u diyaarsan kartaa. waxaan kale ku darsanayaa kabsar caleen, basbaas, jabasala, grape tomatoes iyo waxaan ku darsanayaa waxaan ku darsanayaa sabuul ku qoyan qiyaastii waa koob camal waan ku wada darsan doonaa insha Allah. hadda waxaan diyaarsanayaa oo digirtii waan soo nadiifinayaa, qashinka dhan aan ka reebayaa, waan soo dhaqayaa insha Allah. digirtu waa soo nadiifiyay digsigaasaan ku soo diyaariyay marka waxaan isticmaalayaa instant pot-ka digsiga ku yaala isticmaali kartaa. waxaan ku karinayaa barasharka 15 daqiiqo kadibna qudaarta kale diyaarsanayaa. hadda waxaan diyaarsanayaa waxaan jaranayaa yaanyadii oo halka xabo afar ka dhigayaa, intaas kama yareeynaa insha Allah. cuntadan waa cunto aad iyo aad u caafimaad badan oo aad kaga maarmi karto waxyaalo badan sida hilibka oo kale. digirta waxa ka helaysaa proteinki uga baahnayd hilibka iyo iron. qudaarta kale oo freshka waxa ka helaysaa fitamiinaadkii kale sida A iyo C. run ahaantii waxa ka helaysaa cuntadan nafaqadii jirkaada u baahnayo dhan ayay ku siinaysaa. marka waa cunto loo baahan yahay in lagu soo daro diet-ka haddii aad baratidna aadan wax kale qabaneyn run ahaantii oo hilib iyo waxyaalahaas dhan aad ka maarmaysid. hilibka run ahaantii waa nacaysaa xataa karintiisa haddii aad baratid cuntadan. marka hadda waxaan soo jaranayaa basashii waxaan soo jaranayaa si diced ah oo sida basasha sambuuska camal ka soo dhigayaa. hadda waxaan soo diyaarsanayaa sabuulkii insha Allah. marka sabuulka karis badan uma baahnaa laakiin freezerkan ka soo bixiyay marka xoogaa soo kulleynaa insha Allah. hadda alaabtii dhan waa soo diyaariyay, baaquligaasaan usoo diyaarsaday inaan ku iskula darsado kulli waxa dhan. digirtii si fiican ay igu soo bislaatay waa soo biyo raaciyay. digirta 15 daqiiqaan geliyay markay 15 daqiiqo dhamaatay wali xoogaa way yaraadkeed 5 daqiiqo kala geliyay marka total time oo 20 daqiiqo igu kortay digirta. halkaas waxa igu jira lemon juice oo 2 xabo liin oo soo miiray oo gadaal kaga darsan doono. marka qudaarta kale aan ku darsanayaa oo iskula darayaa. cuntadan waa cunto si fudud aad ku diyaarsan karto oo aadna u caafimaad badan oo aad ku anfacaysa. waa cunto horey aad u diyaarsan karto, waa cunto qabowga in lagu cuno loogu talagalay oo run ahaantii waxaan u diyaarsanayaa salad ahaan. hadda waxaan ku soo darsaday 2 qaado oo saliida aan isticmaalay waa olive oil iyo lemon juice-kii. waxaan ku darsanayaa cusbada waa optional. waxaa u diyaarsan kartaa cuntadan salad ahaan oo furnijerka ayaa sii gashan kartaa ahead. waa cunto furnijerka ugu jiri karto oo markaa u baahan tahay diyaar ku ahaanayso si fududna aad ku diyaarsatay run ahaantii aadna ku anfacayso. cuntadan aad ay u qurux badan tahay caafimaadkeeda iyo quruxdeeda. run ahaantii caawa dhan haddaan ka hadlo ma soo hadalku ma dhameyn karo. waxaan ku daraa wax yar oo oregano ah. oreganaha aad u xoog badan yahay marka in yar hadda kaga darsatay laakiin caraf fiican ku siinayaa. run ahaantii ma qiyaasi kartid siday u fududahay cuntadan iyo siday waxtar u leedahay oo ku anfacayso. hadda waa daboolanayaa oo waxaan rabaa inaan fridge-ka gashado ilaa laga gaarayo cashada. waqtiga cashada ilaa laga gaarayo waxaan rabaa inaan fridge-ka sii gashado. ما شاء الله عشرة نساني كسو بحذي بريسيرا وكري عرورتا
ahaantii aadayna way uga heleen waqti dheer aan karsanayna anaga cuntadan ilmaha way yaqaanaan oo ilmaha qaarkood oo vegetable ka diido ma carruurtaan aad u jecel yihiin way ka heleen run ahaantii qof kasta ka heli karo cuntada sida loo diyaariyay si fudud oo waxa u diyaarisay waxyaalaha ugu yaraan ku daray oo ma sha Allah waxaan ku soo daray qaado oo waxaan kor ka soo saaray qaado oo sour cream ah sour creamka waa iska dhaafi kartaa waxa kaga darsan kartaa korka more lemon juice marka ilmaha bariis ay ku cuneen aniga bariis kuma cunaayo oo kaligeeda cunaaya oo bariis kuma darsanayo insha Allah waxaan ku darsanayaa in yar oo dry parsley ah waa kabsar caleenta qalalan iyo qaado yarta oo sour cream ah run ahaantii you can skip this part oo sour cream ku iska deyn kartaa xoogaa faadu leeyahay ama waxa ku darsan kartaa oo raadsan kartaa mid oo faad lahayn marka cashadan isaan ku soo baxday aad u macaan tahay u fiican tahay caafimaadka ugu roon tahay waa jeclaan lahaa inaad tijaabisaan oo ka faa'iideysataan wixii fiican in la wadaaga fiican oo laga faa'iideysto haddii aad ka hesheen fiidiyogan walaalaha kala share gareeya subscribe kana hanaga hilmaamina waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.